بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. halkan waxaan idinku salaamayaa dhammaanba salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. akhyaarta sharafta badan, asxaabta, dhalinyarada, waayeelka, mujtamaca reer somalilan guud ahaanba waxaan halkan ku salaamayaa salaanta islaamka mar labada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaalada Hargeysa waxaan ka hadlayaa guud ahaan laba qodob oo labada qodobba ay ku saabsan yihiin arrimaha Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo magaalada Taleex ee qadiimiga ee gudaha Somaliland. labada qodob waxa weeyaan qodob nimanka la sheegayo ay saxaafaddu maanta soo qoreen ee odayaasha ku jiijiiday magaalada Hargeysa, gaar ahaan hodheelka Mansoor. waa dhalinyaraduna inay odayaasha ka dambeeyaan bay ahayd, laakiin maadaamay dhacdayba in xaalmarin laga bixiyo ayaa istaahila. xukuumadduna wax ka qabato inamada yaryar ee waxaan ku weli faraafiiqaya ee meelaha taagtaagan odayaasha waaweyn cumaamada sida ee sharafta badan ee madax dhaqameedada inamadan yaryar ee shiidaya. khilaafka kulmiya waa soo dhammaaday. khilaafka kulmiya waqti buu taagnaa, waqtigiisina uu dhammaaday. waxaana markhaatiyo maraka ah Muuse Biixi Cabdi waxa uu saxaafadda iyo golihii guurteedaba u caddeeyey in uu diyaar u yahay lana shaqayn doono xukuumadda iyo xisbigaba haddii uu dood ka qabo. dee markiiba Muuse Biixi dee uu ka hadli lahaa, laakiin Muuse Biixi wuu qaatay oo go-aankaas uu dhameeyey. waxbana kama qabo buu yidhi, hase yeeshee dacariba qadhaadh leh haddii Muuse Biixi uu idhaa isku qabtay maanta, wuxuu idhaa isugu qabtay waa shacabkiisa, waddankiisa, dadkiisa iyo xisbigaba inaanu burburin. guul ayay u tahay Muuse Biixi, taariikhdaanay u gashay. laakiin taariikhda waxaa Muuse Biixi u galay in inama yaryari ay xagxagtaan oo la fool xumeeyo oo ceeb loo marayo oo la yidhaa Muuse maanta yani qaatay gobonnimada ballaaran. haddana in inama yaryaroo sharafta iyo sumcadda iyo heshiiskii burburinaya ay odayaal ku qabqabsadaan magaalada Hargeysa bartankeeda. wax maaha shacabkii ku taageerayay iyo dadka iyo intii wanaagga Somaliland jeclaydba ay soo dhaweynayaan maaha. inamada yaryare maanta cirdiga iyo sharafta odayaashana waa ku ciyaareen, tii Muuse Biixina waa ku ciyaareen. taa waa aad baa raaligelin buuxda aan ka bixinayaa haddii aan ahay Mubaarak Aadan Xuseen. ta labaad ee aan ka hadlaya waxay tahay Somaliland laba maahe waa mid. Somalilandna ma kala qaybsanto. Somaliland ilaa maalinkii ilaahay dhulka inagu abuuray ilaa maanta Somaliland way isku xidhnayd. gobolada waqooyi, goboladii waxaan ku yidhi Ingiriis gumaysan jiray, waa gobollo isku xidhan, gobollo mid ah, gobollo walaala bay ahaayeen. uma baahna maanta uma baahna in laba laga dhigo oo shirdacoodiyo la bilaabo. taa yeelina mayno, raallina kama nihin. saxaafaddana in badan waanu sheegay inaan taa raalli laga noqon doonin. waxaan leeyahay Cali Khaliif iyo nimanka uu wato ee Muqdisho ka soo duulay ha joojiyaan waxay wadaan, ha la joojiyo. haddii la joojin waayo waxa iman doonta in hooyo hoostay geli ay dhacdo. talabaad waxaan leeyahay Jamhuuriyadda Somaliland waa inay si degdega wax uga qabataa oo si degdega shirka lagu joojiyaa. taasaan xukuumadda leeyahay, waayo wadda halaaq mareena bay nagu noqonaysaa waddadaas. arrinkaasu hadduu hirgalo mar hore uu hirgalay oo xagxagasho iyo canjarafajayn iyo
رواية أي كسر بحين الرواية كلا تاجم هاي سومال لأنه ما تلقى سمعية وحنا متعلنا وأنو ودمينينا يوم وكور قلنا inay joojiyaan dadka taleexisku urursaday على خلفه horeeyo xukuumaduna waa inay si degdeg ah uga jawaabto go'aanka uu maanta soo saaray ninka la yiraahdo foodaadan cadde waa go'aan dhiirashadiisa mudan oo waa in go'aanka la qaato xukuumaddu qaadata isaguna waa inuu si degdeg ah dawladda ugu booriyaa inay go'aanka ka dhabayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.